maxaan u xifdinaynaa qur-aanka. maalin maalmaha ka mid ah xasaan waxa uu ka qayb galay tartan ku saabsanaa xifdinta qur-aanka oo lagu qabanayo madrasadiisa. xasaan waxa uu dareemay farxad iyo reereyn sababtoo ah si fiican ayuu usoo xifdiyey oo usoo diyaariyay casharadiisa. waxa uuna rajeynayay inuu noqdo ardayga ugu horeeya ee kaalinta koowaad gala. saacada kadib xasaan waxa uu soo laabtay isaga oo murugaysan, waxa uuna ku fadhiistay kursi. hooyadiis ayaa tiri, wiilkaygiiba maxaa kugu dhacay? intuu ilmeeyey baa wuxuu yidhi, hooyo ani maanta kadib qur-aanka ma xifdinayo. maxaa dhacay wiilkaygiiow? tartankii ayay iga khiyaamayeen, abaalmarintiina waa ii diideen, anigoo weliba ugu fiicnaa ardaydii aan tartanka wada gallay. xasaan hooyadiis waxay isku dayday inay wax u sheegto oo ay murugada ka baabi'iso, balse kuma aynan guulaysan oo weli waxa uu dareemaya ciil iyo murugo. xasaan oohintii ma uunan joojin, waxa uuna ku celceliyey, maanta kadib aniga qur-aanka ma xifdinayo. wiilkaygiiow, ha qaadan go-aan adigoo xanaaqsan ama murugaysan sanado kadib si aad uga shallaayin. waxaana ila jooga qof aad aad u jeceshahay oo ina soo booqday, wuxuuna kugu sugayaa hadda qolka martida. xasaan waxa uu u dhaqaaqay dhinaca qolka martida si uu u arko qofka ku sugaya halkaas. albaabka ayuu garaacay si tartiiba ayuuna u furay. isla markiiba waxa uu arkay ayadiis oo ku fadhida salliga oo dhex yaalla qolka martida. isla markiiba xaggeeda ayuu cararay oo hab ayuu siiyey, hase yeeshee illintii ayuu xajin waayey oo mar qura ayuu afka furtay. ayagoo si naxariis ku dheehan tahay laabta u gelisay ayaa tiri, maxaa kugu dhacay? waxay iga qiyaamayeen tartankii xifdinta qur-aanka, hadiyadihii xaqa aan lahaana ima iisa siin. xasaan ayadiis wax yar ayay aamustay, indhaheedana waxaa ka soo hooray ilin. xasaan waxa uu kor u eegay ayadiis oo ooyeysa, waxa uuna yidhi, ayey maxaa kugu dhacay ood u ooyeysaa? ayey maxaa kugu dhacay? waxaan xasuustay dayacaad aad naftayda hore ugu geystay xilligan carruurta ahaa. oo waa maxay dayacaadda aad hore u samaysay? markii aan yaraa maalin ay maclimadeeda qur-aanka si xun iga qaatay anigoon waxba samaynin. kadib guriga ayaan ku soo laabtay anigoo murugaysan, waxaana u sheegay waalidkayga inaan mar dambe qur-aanka xifdinaynin. aad ay u murugoodeen, waxayna igula taliyeen inaan qur-aanka xifdiyo, laakiin go-aankaygii ayaan ku adkaystay. ugu dambeynna qur-aanka ma aanan xifdin marka laga reebo qul walle, qul acuudu birabbil falaq iyo suurado yaryar oo ku tukada salaada oo aan akhriyo faatixada gadaasheeda. haddii aan maalintii dulqaad lahaan lahaa, waxaan baran lahaa qur-aanka oo idil, suuradaha dheerdheerna waan ku luqayn lahaa, si fiicanna waan u farxi lahaa. taas ayaan la ooyey oo aan la murugooday, allana waxaan ka baryayaa inuu ii dambi dhaafo. xasaan ayadii ayuu ka codsaday in ay fasaxdo oo uu qolkiisa aado. sariirtiisa ayuu ku fadhiistay, waxa uuna galay fikir iyo isla hadal ku saabsan tartankii. waxa uuna dareemay ciil iyo cadho sababtoo ah waxa uu arkayay in la dulmiyey. waxa uuna mar kale go'aansaday inuu joojiyo xifdinta qur-aanka. kadibna waxa uu xasuustay qisadii ayadiis ooga sheekaysay, waxa uuna ka baqay in tullamadaahi ku dhacdo. murugadii waa ay sii laba jibaarantay oo waa uu walaacay, wax uu sameeyana wuu garan waayey. qur-aanka ayuu xifdintiisa ka tagaa si hadhow u shallaayo, mise wuu dulqaataa si hadhow u guulaysto? isagoo aad u walaacaya ayaa qofi albaabka soo garaacay. haddii uu furayna waaba ayadiis. waxa ay ii sheegtay hooyadaa in aad doonaysa in aad joojiso xifdinta qur-aanka. waxaan kuugu imid in aan kaa caawiyo in aad qaadato go-aan sax ah oo aad ku faa'iido. ee sideed u aragtaa ayeeyo? sideed ii caawinaysaa? waxaa jirta su-aal keli ah oo haddii aad ka jawaabtid wiilkaygiiu aad helaysa jawaabta ugu saxsan hadduu alla idmo. maxay tahay su-aashaas? dhaqso ii sheeg ayeeyo. su-aashaasi
waraaqadan bay ku qoran tahay ee hoo akhriso. xasaan waraaqadii ayuu qaaday, su-aashiina wuu akhriyey. maxaan qur-aanka u xifdinaynaa? su-aashani aad ayay u fududahay. haddaba qalinka qaado oo jawaabta qor. su-aashani run ahaantii aad bay u fududahay, laakiin ma garanayo jawaabteeda. go-aan saxa ma qaadan kartid adiga oo aan jawaabin su-aashan. haddaba ii sheeg adoo mahadsaneeyo. heshiis ayaan wada gelaynaa. adigu waxaad iga caawin doontaa in aan xifdiyo suurado ku jira juscamo. anna waxaan kuu sheegi doonaa jawaabta su-aashan. sideed u aragtaa? heshiiska diyaar baan u hayay. 2 kitaab ayuu soo qaaday, midna isagaa qaatay, midna ayadii ayuu u dhiibay. meel u dhowna wuu soo fadhiistay. hadda ii sheeg intayna casharka bilaabin su-aasha jawaabteeda. waa suulahay ayay. maya wiilkaygiiow, marka hore aniga isaacid oo ibar hal suurad, kadibna aan kuu sheego sirta ugu muhiimsan ee aan qur-aanka u xifdinayno. waayahay ayeeyo, ee suuradeen ka bilownaa? waxaan ka bilaabaynaa suuratulbayina. suuratulbayina aad ayay u adagtahay ayeeyo, lama xifdin karo suuraddaas. waxaan ka cabsaday in aan xifdiyo suuraddaas aniga oo yar. hadda waxaan rabaa inaan xifdino ee ii mari ayeeyo. xasaan suuraddii in uu ayeeyo u mariyo ayuu bilaabay. ayeeyana waa ay ka daba akhrisay. waxa ayna ku celceliyeen 10 jeer, laakiin ma aynan xifdinin. waa uu daalay, wuuna niyad jabay. ayeeyo, waan kuu sheegay in aan suuraddan adag tahay. hadda waa kaas saa'id baan u daalay. wiilkaygiiow, aniguba inta aad daashay in ka badan ayaan daalay, mana rabo in aan joojiyo xifdinta suuraddan. maxaa dhacay ayeeyo? adiguna waa daashay, anna waan daalay, ee aan iska joojinno. wiilkaygiiow, bal tiri xarfaha suuraddani ay ka kooban tahay waa meeqo? dhaqsi ii sheeg adigoo mahadsan. xasaan waxa uu tiriyey xarfaha suuratulbayina. daqiiqada kadibna waxa uu yidhi, qiyaas ahaantii waa 400 oo xaraf. waa fiican tahay wiilkaygiiow. hadda ayaan kuu sheegayaa sirta koowaad ee sababta aan qur-aanka u xifdinayno. rasuulka nabadgelye naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu yidhi, qofkii akhriya xaraf oo kitaabka alle ka mid ah waxa uu leeyahay abaalgud. abaalgudkana waa loo taban laabaa. idin dhihi maayo alif laam mim waa xaraf, laakiin alif waa xaraf, laam waa xaraf, mimna waa xaraf. ayeeyo, ma waxaad i leedahay markii aan akhrinay suuratulbayina waxaan helnay 4,000 oo abaalgud? weliba waxa aad hilmaantay inaan akhrinay suuratulbayina 10 jeer. hadda ma ii sheegi kartaa inta abaalgud ee aan helnay daqiiqadihii aan suuraddan akhrinaynay? hayeeyo, guud ahaan waa 4,000 oo abaalgud. sidaa ma aanan ogeyn. waqti badan ayaan iska dayacay oo ciyaar iyo baashaal aan ku bixin jiray. haddaan ogaan lahaa in uu qur-aanku saan u ajar badan yahay waan ku dadaali lahaa. haddana waa ballan inaan xifdiyo oo aan barto qur-aanka.